diyaaradan iyo dhaqaatiirtan way soo dirtay dowladda qatar ee maanta soo gaaray magaalada muqdisho ayaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan waxa ay ka qaadeen dhaawaca gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow isaga iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir kuwaasi oo shalay ku dhaawacmay qarax ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho gudaha garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan waxaa ku sugnaa xubnihii guddiga ay dowladda federaalka soomaaliya u xil saartay gurmadka dadkii wax ku noqday qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana sidoo kale xubnaha madasha ku sugnaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya sanatare matalayay golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir qaar ka mid a ehelada dadka dhaawaca ah ee maanta laga qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dhaqaatiirta dalka qatar ayaa ka hor inta aysan ka qaadin garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho dhaawacyadii wax ku noqday qaraxii ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho ee uu ku jiro guddoomiyaha gobolka banaadir waxay in muddo ay ku sugnaayeen gudaha garoonka diyaaradaha halkaasi oo ay ku baxnaaninayeen xaaladda qaar ka mida dhaawacyada loo qaaday dalka qatar guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ibraahim cumar mahad alle ibraahim dheere ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu ka mahad celiyey sida ay shacabka ku nool gobolka banaadir ay ugu soo gurmadeen markii ay dhacdadu ka dhacday xarunta maamulka gobolka banaadir oo qaybaha bulshada ay mas-uuliyiinta la garab taagnaayeen ilaa iyo xarunta cisbitalka digfar ee magaalada muqdisho innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun inta dhintay allah u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo sidaa og tihiin shalay waxaa ka dhacay gobolka banaadir aqalka dawladda hoose looga arrimayo fal argagax leh oo ay soo maleegeen cadowga uu talagalay inay dadkeenna ay gumaadaan habeenii maalin laakiin sib wanaag ilaahay amarkiis sidii ay wax u rabeen waxba uma dhicin tiro yar oo dhaawaca uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka banaadir dhaawaca fududa ayaa jirta waxaan rajaynaynaa maalmo kadib asiga oo socda inuu noo yimaado insha allah biidnillaahi kariim dadka reer muqdisho waxaa ugu baaqayaan inay isdejiyaan waxaa kaloo ugu mahad celinayaa sidai ay noo garab istaageen ayaan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa in arrimaha iyo qaabka u dhacay qaraxa waxaa ku howlan laamaha ammaanka waxay warbixinane ayagaan ka sugaynaa wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane injineer cabdi canshuur xasan oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka dowladda federaalka soomaaliya ay u xil saartay dadka wax ku noqday qaraxa ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa dhankiisa goobta ka sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay dowladda qatar iyo shacabkeeda uga mahad celinayso siday u garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed waxaase uu shaaca ka qaaday in dowladda dhexe ee dalka ay garab taagan tahay shakhsi kasta oo wax ku noqday qaraxii ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaa maanta noo suurto gashay in aan dhaawacii u dirno caafimaadda dibadda shacbigii ku dhaawacmay iyo mas-uuliyiintii ku dhaawacmay intaba waxaa noo suurto gashay maanta inaynu u dirno dalka dibaddiisa si loogu soo daaweeyo taasoo ah tan xukuumadda mar kasta ay u taagan tahay in shacbigeeda iyo mas-uuliyiinteeda garab istaagto taasna waxay ku suurto gashay wada shaqaynta iyo kaalmada iyo walaaltinimada dhow ee shacabka iyo dawladda qatar aynu saaxiibbadan nahay ayay ku suurto gashay oo markaas gurmad u soo diray takhaatiir iyo diyaarad maaragtay ambulaas ah u soo dirtay si nagiin aan lagu qaaday dhammaan intii dhaawacantay waxaan leeyahay ilaahay hanoo caafiyo shuhaadadiina ilaahay jannadii ha ka waraabiyo cumar maxamed soomane universal t v muqdisho